السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan niisama asxaabta qaaliga oo markii iga arrimaha Bollywood kan kaga hadla jirnay jilayaasha iyo akhbaaraadka cusub ee Bollywood-ka. Akshay Kumar wuxuu ku biiray dhir-beerista geedka Mumbai wuxuuna kor u qaadayaa waaritaanka deegaanka. Akshay Kumar ayaa dhawaan ka qayb galay hindise dhir-beerista oo ka dhacay Mumbai. Wuxuu isku diyaarinayaa sii deynta filimkiisa soo socda ee Sirfira. Jilaagan Bollywood-ka Akshay Kumar ayaa dhawaan ka qayb galay hindise beerista geedka oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada Brand Mumbai BMC iyo Mike ee hindisaha lagu talagalay in lagu wanaajiyo gobolka cagaaran ee magaalada ayaa la arkayay guddoomiyaha degmada Brand Mumbai iyo maamulaha Bhushan Gagani oo beeriya geed ka barbar socda Akshay Kumar ayadoo la kaashanayo maamulka dhirta ee degmada Brand Mumbai. Hindisuhu wuxuu diiradda saarayaa beerista ilaa 200 oo geed bahwa oo ku teersan wadada galbeedka ee Garwadi Bandara. Dadaalkan waa qayb ka mid ah istiraatiijiyadda ballaaran oo lagu dhimayo wasakhowga magaalooyinka laguna horumarinayo sii jirista deegaanka magaalada gudaheeda. Dhanka kale, dhanka madadaalada Akshay Kumar filimkiisii soo socda ee Sirfira ayaa hadalhayn weyn abuuray kadib markii la sii daayay goosgooska filimkaasi. Tanusha Dud ayaa ka hadashay falcelinta Nana Patekar ee eedeymaha Me Too isagoo ka dhanka ah waxaana ugu yeertay beenaale cudur faafa ah wuuna baqaya ayay tiri Tanusha Dud maalin kadib markii Nana Patekar uu ka jawaabay eedeymaha Me Too ee ka dhanka ah isaga ayaa soo shaabixiyay atriishada. Tanusha Dud ayaa arrinkaas ka falcelisay waxayna sheegtay in atooraha uu arrinkan ka hadlayo 6 sano kadib sababtoo ah waa cabsanaya. Atriishada ayaa tiri waa cabsanaya dadku hadda way arki karaan wax isdoomarintiisa. Sanadkii 2018 Tanusha Dud ayaa sheegtay intii lagu guda jiray duubista filimka Horaan Okay Please 2008 Nana Patekar ayaa isku dayay in ay galmo ku sameeyo atriishada. Dhawaan wareys la yeeshay Laantob Nana Patekar ayaa ka jawaabay su'aalaha la xiriira eedeymaha Me Too isagoo ka dhanka ah wuxuu yidhi jilaagu waxaasi waa been waxba kama jiraan. Aabaha Saleem Khan ayaa shaaca ka qaaday sababta uu xiddiga Bollywood-ka weli u yahay asigoo 58 jir ah. Salmaan Khan wuxuu sii hayn doonaa doobnimo sababta keentay weli jawaab uma helin. Si kastaba aabihiisa ayaa sharaxaad ka haysta xaaladda guurka ee wiilkiisa ee aan isbedelin. Jilaaga caanka ah ee Salmaan Khan oo 58 jir oo gurdoon ah ayaa dadka aad u dhabeebaya iyadoo la weydiiyay sababta uusan weli u xarunta guurka hadda ka hor. Wuxuu sheegay in ay dhici doonto marka uu helo midka maadaama uu doonayo inuu noqdo guurkiisa ugu horeeyay iyo kan ugu dambeeyay. Hadda muuqaalka Salmaan Khan aabihiisa oo ka hadlaya xaaladda guurka ee wiilkiisa ayaa ku baahay baraha bulshada. Muuqaalka Saleem Khan wuxuu sheegay in Salmaan Khan uu ku degdego inuu xiriir la yeesho balse uu ka labalabeynayo inuu horey u sii wado maadaama uu ka cabsi qabo in qof kale uusan yeelan tayada iyo kartida ay hooyadiis leedahay.